ugu dambeyn Axmed Madoobe ayaa ku guuleystay doorashada Jubbaland isaga oo noqonaya madaxweynihii saddexaad ee dowlad goboleedkaasi hogaamiya 5 sano ee soo aadan ayuuna hogaamin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal doorashadii halkaasi ka dhacday waxyaabihii laga bartay waxa qorshuhu yahay in Jubbaland gaar ahaan Axmed Madoobe soo baxay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya uu ku wajaho Cumar Guxayaan hay halkan waa nabad hadii uu muuqaalka ku soo gaarsiiyo shirkadda saaxiibada la sii wadaag qaybta hoose ee faaladan aragtida nagula wadaag haddii aad qayb nagala ahayna nagu soo biir mar kale soo dhawaada saaxiibayaal doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo si gaar ah xarunta madaxtooyada Jubbaland ayuu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha saddexaad dowlad goboleedkaasi Jubbaland isaga oo doorasho laba mar galay waxa ay ahayd sanadkii 2019 Agoosto 22keedii waxaana uu isagu la tartamay dhowr musharax ugu dambeyn isaga ayaa ku soo baxay isla sidaasi oo kale sanadkan 2024 25 bisha November 2024 ayuuna mar kale ku soo baxay doorasho ka qabsoontay magaalada Kismaayo Axmed Islaam ama Maxamed Madoobe waxa la tartamaysay ilaa iyo 3 musharax oo kala ahaa Dr. Cabdi Xasan Xajiin iyo sidoo kale Faysal Maxamed Mataan iyo Abuukar Cabdi Xasan oo iyaguna kamid ahaa musharaxiintii la tartamayay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana loo doortay madaxweynaha saddexaad ee dowlad goboleedka Jubbaland marka hore isaga ayaa noqday oo madaxweynaadkii koobaad ayuu idleystay madaxweynaadka labaadna sanadkii 2000 iyo sidoo kale 19 ayuu ku soo laabtay haddana waa 2024 Axmed Madoobe khilaaf adag ayaa kala dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii uu ka biyo diiday in uu joojiyo doorashooyinka waxa uu soo xulay amisna uu magacaabay guddi doorasho oo iyagana soo xulay 75 xildhibaan oo Jubbaland baarlamaankeeda kamid ah sidoo kale waxa isagu maanta uu ku soo baxay doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya marka laga tago Jubbaland hadda waxa ay leedahay laba madaxweyne mid waxa magacaawday dhawaan musharaxiinta mucaaradka ah ee Jubbaland waxaana ay u magacaawdeen Senator Ilyas Bedel Gaboose labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaana aqoonsaday oo aqoonsi siiyay isla markaana taageeray hase yeeshee maanta Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ahaa madaxweynihii Jubbaland ayaa mar kale ku soo laabtay oo isaguna markaasi noqday madaxweynaha xiga ee Jubbaland Kismaayo laba madaxweyne ayaa maanta ku wada sugan qaybna waa mucaarad qaybna waa muxaafad oo maamulkii hore ee jiray ayay qayb ka ahaayeen maanta madaxweynaha kale ee cusub ee la doortay ee Axmed Madoobe ayaana rajadu tahay in xilkiisa isla isaga uu isku wareejiyo iskuna caleema saaro magaalada Kismaayo ee maamulkaas horay caleema saarkiisa waxa uga qayb galay madaxweynaha xilligan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud horayna mucaarad ugu ahaa dowladii farmaajo isla doorasho tan lamid ah ayuu ku qabsaday Kismaayo iskuna caleema shubay waxaana ka qayb galay musharaxiin mucaarad ahaa xilligaasi isla tanna waxa la filayaa in musharaxiin kale oo mucaarad ku ah dowladda Xasan Sheekh oo ugu horeeyo madaxweynihii dowladii ku meel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xubno kale oo mucaarad ah inay ka qayb galaan caleemisaarkiisa amniga Kismaayo ayaa si weyn loo adkeeyay intay doorashadu socotay inkastoo maalmo ka hor halkaas ay shaqaaqo ku dhaxmartay ciidamada ammaanka Kismaayo iyo sidoo kale xubno ilaalo gaar ah u ahaa musharaxiinta si gaar ah madaxweynaha dhinaca mucaaradka ay magacaawdeen ee Ilyas Bedel Gaboose haddaba Kismaayo maxay ku dambeyn doontaa oo hadda laba madaxweyne ay ku sugan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya se go'aanka kaga aadan is doorashada Axmed Madoobe maxay tahay qaybta hoose ee faalada aragtida nagula wadaag